ogna gacan saddexaada isticmaalaysa anugu oday Soomaaliyeedana ma dadka meediyaha mariyad ali shakhsiyaadka tilmaama ma ahi dadka ceebaha shakhsiga sheegana ma ahi inaan ku kaftamo barnaamijka waa suurtagal laakiin Soomaali uma soo mariya baalki mar raba inaan hoos ugu dago anaga reer galmudug aan la yiraahdaa taaka kamida Soomaaliya ama dowlad goboleed Soomaaliya kamida waxaan la jecelnahay horumar waxaan la jecelnahay wanaag waxaan la jecelnahay galmudug maxaa yeelay galmudug inoo la mid yihiin sidaasoo kalena dadka Soomaaliyeed isuna jecel yihiin una fakarayaan laakiin way iska jiri kartaa hoggaan si qaldan iskaga maaragtay in wax la qaso iskaga fakari kara oo si qaldan wax ka yihiin cidna u qaban mayno meeshii wax ka qabsoomeen kuwa maalin xaggay tahay dad walaalaheena inta soo bandhigaan dhahaya waxa u qabsamay doorasho xagga galmudug anaga doorasho cid u qabsoonto walaalaheen weeye waa ku faraxsannahay waa soo dhaweynaynaa waa hambalyeynaynaa sharaf bay noo tahay annagoo sanad iyo bar xaafiiska joognay maxaa doorasho qof iyo cod u keeni weyseen haddii maantana ku dhaliilayo waa ilaahay mahadis ayadana waa keenaynaa ayadana way dhacaysaa insha allah walaalihii ay u qabsoontana waxaan leenahay wax badan hore u socda unu dhaaqeen wakti dheer kadib weliba galmudug waa dowlad curdun ah hal teeran bay jirtay halka teeran waa isla ognahay hal teeran oo un iska barwaaqaysneed u ahaa maantay sanad iyo bar galmudugta cusub jirtaa marka sanad iyo bar haddii la yidhi xasan markaan u keeni weyseen qof iyo cod dowlad goboleedya walaalaheenahoo 20 dhowr sano jiray laleeyahay maxaad usoo keeni weyseen waa ilaahay mahadis halkaasaan soo gaarnay waana guul iyo sharaf nagu dhaliila ayada dhaliil noga dhiga waa ogolna waa qaadanaynaa laakiin ha noqonin maalintan kursiga aan rajo ka qabo oo anigu aan in la ii dhex xoogo ama anigu aan ku fadhiyana carada galmudug u fiican maalintan aniga rajo aan lay dooranayn ama aan arko inaan meesha aan kursi aanan ku fadhina ama aan cid kale isoo raratana galmudugaan 100 ceebood aysan lahayn u yeelaya